بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا كان عشير رمضان توقدا بأيه waxaynu ognay bisha ramadaan inay tahay bisha ugu fadli badan sanadka isla markaa waxaynu ognahay tobanka habeenee ugu dambeeyaana inay ramadaan ugu sii fadli badan yihiin idan waa bishii u fadli badnayd iyo tobankii habeenee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo tobankan laga dhex filayo ayaa jira. haddaba hadyigii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nebigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam ku saliya nebiga inuu ku dadaalo daacada iyo ilaahay u dhowaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadkao dhan. yani tobankani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadkao dhan intiisa kale. si awgeed bay imaamu muslim xadiidka uu soo warinayo umu lmu'miniin caaisha radia allahu canha waxay leedahay kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yajtahidu fi اlcashri اlawaakhir maa laa yajtahidu fii gayri. wuxuu ahaa nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam tobankaa habeenee ugu dambeeya bisha ramadaan mid dadaala si aan u dadaalin sanadka intiisa kale oo dhan. idan tobankan habeen wuxuu qofka muslimkii u baahan yahay awood wuxuu leeyahay oo dhan iyo raganimo iyo tamar iyo xoogba inaad isugu geyso tobankaa habeen cibaadadooda. weliba caaisha waxay leedahay hadyigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa xadiiska saxiixaynku warinayaan kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam إida dakhala اlcashru شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. إمام مسلم الرواية دي waxay ziyaadinaysaa وجد وشد مئزرة. عائشة waxay leedahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam tobankan habeen hadday u soo galaan guntiguu dhiisha iskaga dhigi jiray halkay soomaalidu tidhaahdo guntiguu adkaysan jiray habeenkiisana wuu noolayn jiray reerkiisana wuu toosin jiray bay caaisha leedahay. waxaa kaloo sii muhiima inaad de habeenkii baadi doontid khatarta ahaa laylat اlqadr oo uu nebigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam tobanka dambe in laga baadi doono oo uu haddana yidhi iltamisuuha fi اlcashri اlawaakhir waltamisuuha fi kuli watrin buu nebigu haddana fi kuli witrin war tobanka dambe ka raadiya oo haddana waxaa ka sii raadisaan buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam habeenada witirka ah. habeenada witirkaa ka sii raadiya oo maxaad qaban waxaad qaban caaisha waxay tidhi oo ilaahay hadduu ila kulmiyo maxaan yeela xadiidka ibnu maaja iyo tirmidiba warinayaan sheekh albanani saxiixayay sheegay wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam quulii allahuma inaka cafuwun kariim tuxibu اlcafwa facfu cana. waxaad tidhaahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfu cana. ilaahayow miduu cafiye baa tahay ee icafi dheh oo cafigana jecel ee rabbow icafi dheh. idan habeenkan si aad u raadacayso baryada ilaahay badi baryada ilaahay badi. waa habeenkuu nebigu leeyahy fiihi laylaة khayru min أlfi shahri man xurima khayruhaa faqad xurim. xadiidka axmed iyo nasaa'i ba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya. waa habeen kun bilood ka khayr badan sida qur-aankuba sheegayde oo man xurima khayruhaa faqad xurim buu nebigu yidhi. habeenkaa ninka khayrkeeda waayaa habeenkaa khayrkiisa ninka waayaa kaasi khayrba waa khayr beele. khayr beelayaasha si aanad ugu biirin habeenkan raadicee
sidaa ogeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si laynoo dareensiiyo habeenkan fadligiisaa layna yidhi kow war waa habeenku qur-aanku soo degay baa la yidhi innaa anzalnaahu maxaa ku xiga fii leylati alqadri leylatu alqadri khayrun min alfi shahr waa habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u doortay hadalkiisa uu aadanaha kula hadlayo wuxuu u sheegayo inuu soo dejiyo waa habeenkaa qur-aanku uu ku sheegayo kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo 3 sano wax ka badan bilaa dheer 3 sano siduu ula mid yahay yani waxa weeyaan salaadaad habeenkan tukataa 3 sannadood salaadaad kun bilood salaadaad tukanaysa u dhigantaa wardigaad wardidaa intaasuu u dhigmaya yani camalka khayrkee aad shaqaysataa camal la shaqaynayay dhowr iyo 80 sannadood buu maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya habeen barakaysan inuu yahay haddaad inuu barako raadinayso soomaalidu barakay doontaa soo maaha xabaalaha waa laga soo barakaystaa meeshan waa laga barakaystaa waa barakaa la raadinaya haddaad barako rabto innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka baa ilaahay habeen barakaysan habeenkan baa ah ee raadi waa habeen malaa'igtu soo degto jibriille uu soo dego xata jibriil malaa'igta oo dhan baa soo degta oo qadarkan alqadar culamada mufasiriinta qaar baaba sheega inay tahay min addiiq oo cidhiidhi ay tahay waxaan filayaa caalimkii lugawiga ahaa khaliil ibnu ibraahim alfarahidi siduu sheegayo khaliil ibnu axmed alfarahidiy siduu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiray wuxuu leeyahy malaa'igta dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgelyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kullu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socdoo dhan la soo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi moxamed leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam uu nebigu yidhi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba غufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba غufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku 3 shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaanan واxtisaabana dembigiisaa la dhaafaa habeenka kanna si gaara ninka tukada habeenka laylaة اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa layidhi غufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee 10kan la sameeyey culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaaةu wasalaam jibriil baa intuu u yimaaduu bisha tan qur-aanka la akhriyi jira oo la daraasayn jira sanadkii u dambeeyena 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay yaan idinku badinin hadalka waa intii culammadu idiin sheegaysay un baan ina ku celiyey anigoo raba uun maadaama ay maanta 21 ahaydoo habeenba tegey laga yaabo inay 8 uun hadhay ama 9 hadday u badato inaan idin dhiiri geliyo si aakhiradiinna iyo xoogsigiinna iyo camalkiinna wanaagsan u derdergelisaan oo uga dheeraataanna
wixii dunuuba iyo wixii mubaaxaata dembi isaga maba hadal hayne waxyaabihii mubaaxa iska ahaa ee sheekadii iyo warkii badnaa iyo hurdadii badnayd iyo waxaa intaad soo yarayso bal 8 habeena hadhay ama 9 habeena hadhay ragga intaynu iska dhigno raga bal raggii hore aan ka daba tagno salaf ilumma iyo say u dhaqmi jireen oo tasbiix taxmiid tahliil laa xawla walaa quwata ila billah salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aan akhris iyo wixii la mida salaad aan isku dayna inaan badinno warkaygu galabta intaas ku leeyahay sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam